السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan meesha inaan kasii socda casharadii aqoonkaal.com ee aan ku baranayna barnaamij xisaabeedka Open Office. Casharkan maanta wuxuu daba socdaa casharadii hore. Waxaan si gaar ah u eegaynaa qaab habaysan oo loo xisaabin karo tusaale ahaan haddii aad leedahay mashruuc ama jaaliyad lacagta soo gashay iyo lacagta baxda sanadka oo dhan guud ahaan. Haddaba sida ugu sahlan oo loo wajihi karaa waxay tahay in marka hore la qoro guud ahaan xisaabta ama waxyaabaha aad u malaynaysid inaad u baahan tahay oo sanadkaas oo dhan ah. Waxaan qornay jaaliyadda tusaale ahaan iyo mashruuca khayriga ah. Kadibna waxaan nidhi kharashka soo gala ama kharashka soo xorooda iyo kharashka baxa. Markaas waxaan qoraynaa bishii oo Janaayo ilaa iyo ka gaarno December. Waxaan marka qoraynaa deeqdii ama pledge wax la yiraahdo ama waxyaabaha lacagta oo loogu deeqo mashruuca bil kasta iyo lacagta lagu kaabo. Waxa laga yaabaa lacagta lagu kaabo in hal mar dhowrkii biloodba hal lacag guud la siiyo ama soo gasho mashruuca. Deeqdana waxa weeyaan lacagta bil walba soo gasha baa ka dhignay. Dhanka kale kharashka baxa waxaan nidhi kiro oo kirada bil walba ama dhowrkii biloodba hal mar la bixiyo ah. Korontada ama waxa dhigaysaa koronto iyo biyihii iyo hiidkii wixii markaas guud oo bil walba la bixinayo iyagana. Dayactir waxa laga yaabaa in nadaafadii ama waxyaabaha lagu soo gado ama waxa laga yaabaa inuu guri yahay meesha mashruuca uu ka dhisan yahay. Marka in nalalka laga bedelo marka wixii dayactir ah ana waxa ku qoraysaa marka waxa samaynaysaa kolam gaar ah. Waxaan haysanaa marka kharashka soo gala iyo kharashka baxa. Sida ugu sahlan oo loo abaari karo marka waxay tahay saa ogaatid marka hore iyadoo waxba ku qornayn ayaad waxa isku daraysaa qayb walba. Ma garatay? Marka waxaad tegaysaa meesha isku dar calaamadii isku darkana waxa leeyahay marka equal waxaan isku daraynaa marka kasoo bilow meesha ugu sarreysa oo Janaayo ah ilaa iyo December aan gaarino. Intaasaan isku darnay waxaan nidhi enter. Marka hadda waxba inoo kuma qoran eber baa soo baxaya laakiin marka waxaan ku qornay xisaabta soo bixi doontaa. Sidoo kale lacagta kaabidda ah meeshadii tag calaamadii isku darka kasoo bilow Janaayo ilaa aad gaarto December enter. Kiradii imow meesha isku darka imow calaamadii isku darka calaamadii enter. Sidoo kale korontada ama halka waxa laga yaabaa inay ku tahay koronto ama biyo ama wixii markaas oo bil walba la bixinaya ama dhowr biloodba mar la bixinaya. Calaamadii isku darka calaamadii enter. Dayactirkii calaamadii isku darka calaamadii enter. Waxaan haysanaa marka isku darkii oo ah macnaha kharashka soo gala ah oo laakiin u kala qaybsan deeqdii iyo kaabidii. Kana waxaan haysanaa bil walba waxa baxa laakiin waxa laga yaabaa inay mid walba gaarkiisa u qoran yahay. Imoo marka isku darka guud lacagta in waxaan nidhi marka lacagta waxaan ka wadaa halkaas lacagta soo xirato oo dhan waxaan u soo gaabiyey lacagta in oo macnaha soo xirodkii ah. Soo xirodka waxaan isku daraynaa kaabidda wixii ka soo baxa iyo deeqda wixii ka soo baxa. Marka waxa leedahay equal waxaad calaamadinaysaa isku darkii deeqdii wixii isku darsa oo dhan. Markaas leedahay plus kadibna waxaa leedahay calaamadinaysaa kaabiddii enter. Hadda erbi ku tahay waxba kuuma qoran labada meelood midna. Sidoo kale outka waxaan isku darnaa saddexdan korontadii biyihii maaragtay kiradii dayactirkii wixii dhan isku daraynaa. Marka calaamadii equalka kiro plus koronto plus dayactir enter. baaqiga marka sanadka oo dhan soo noqday wuxuu noqonayaa waxa kala jaraysaa inka iyo outka. Marka waxa leedahay equal lacagtii soo xirotay calaamadii minuska ama kala jaridda lacagtii baxday enter. intaas marka waxa weeye waxa hadda kuu qarsoon xisaabtii oo isku kaa darsamaysa mar allaale markaad ku qoratid booska ay leedahay. aan ku bilowna marka Janaayo. bisha Janaayo waxa loogu deeqay kasoo qaad waxa loogu deeqay macnaha mashruuca 4500 karoon. lacagtu waxay rabtaa ahaan kartaa marka automatically waxa isku darsamaya xisaabtii toos bay isku darsamaysaa soo jeedid marka 4000 bahda bishaas sanadka oo dhan marka hadee waxa weeyaan waa bishii koowaad baa la joogaa marka wax isku darsamay dhan baa soo muuqanaya.
bisha labaad waxaan ka dhignaa in loogu deeqay 5,000 enter saddexaad 3,500 marka bisha afraad baa laga yaabaa deeqda inay yaraatay oo noqotay 2,100 laakiin waxa lagu kaabay 7,000 oo hal mar lagu kaabay dhinaca marka waxaa dhinac socda kirada bishii koowaad waxaa laga yaabaa kirada in labadii bilood mar la bixiyo marka Janaayo lama bixin February baa la bixiyay February waxaa la bixiyay marka 7,000 oo koron markaas waxaa la bixiyay mar labaadka 7,000 korontadii bil walba waa la bixiyaa waxaa laga yaabaa in bil walba la bixiyo 80 bishan koronto waa badatay waxaa laga yaabaa laga dhigo 90 100 120 dayactirka waxaa laga yaabaa Janaayo aan la dayactirin laakiin la dayactiray February oo ku baxday 900 marka sidaas u buuxi macnaha bil walba wixii ku baxay oo dhan waxaad arkaysaa markaa sanadku dhammaado wixii ku soo baxay oo lacagtii soo xirotay oo dhan oo aan niri in iyo lacagtii baxday oo dhan iyo wixii baaqi ah waxaa halka ka arkaysaa marka sanadku dhammaado wixii lacag ahaa oo soo xirooday deeqdii kaabidii wixii lagu kaabay iyo wixii baxay marka waxaan niri in oo lacagtii soo xirotay labadan la isku daray ah iyo lacagtii baxday oo saddexdan kolom aan isku darnay ah marka waxa soo haray lacag inta dhan waxa halka ka garanaysaa macna inay aad u sahlan tahay in la maareeyo qaab xisaabeedka tusaalahan jaaliyada ama mashruuca ama maartay hay'adda khayriga ah haddii marka hore aad taqaanid waxa baxaya kolom oo samaysid waxa soo xiranayna kolom samaysid isku dartid adigoo waxba ku qorin kadibna automatically lacagtii soo kaadarsamaysa marka la gaaro xisaabta xirkana waxa weeyaan si fudud baad u xisaabin kartaa waxaad ku muujin kartaa graph ila waxaan soo barnay graafka wareegsanaa baa ugu sahlan haddii aan ku muujino waxaan leenahay saddexdaan muujinayna graafkooda ilaa waxa weeyaan waxa bil walba marka waxa haysano iyo waxa noo soo xorooday iyo waxa baxay iyo waxa baaqiga waxa soo kaantaraya xisaabta isku darka guud calaamadii saddex labadan line kadibna graafkii calaamadii graafka waxaan dooranaynaa graaf nooca ah ka wareegsan noo door marka waxaa arkaysaa hadda waxa weeyaan lacagta in lacagta out iyo baaqiga next waxaa ku qoraysaa marka xisaabta guud xisaab xirka sanadka 2011 finish waana qana qaabka loo kaxayo halka waxaa ka aragtaa marka bil walba markaan isku darsano kana automatic buu ku samaysmaya haddii aad markaa bishii koowaad hadda sameeyo macnaha bishii koowaad markaa aad lacag kuu soo baxday meeshaan hadda garaafka samaysay bil walba wax isbedelaya tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in lacagta soo xirotay ahayd agosto ay ahayd intaas ka badnayd oo ahayd lacag aad u badan ahayd garaafki marka waxaa arkaysaa lacag soo xirotay meeshaan waa badanaysaa marka waxa buluug waa lacag soo xirotay midabkan waxa weeyaan waa lacagta baxaysa baaqigana waxa weeyaan waa lacagtan macnaha midabkan wey saddexda midab buluug iyo midab orange ah iyo mid huruuda halkaas waxaa garanaysaa inay aad u sahlan tahay in la xisaabiyo ama xisaab xir si fudud loo sameeyo si muuqaal guudna lagu muujin karo haddii la yaqaano marka hore waxa laga bilaabayo waxaan ku bilownay waxaan naqaanaa kharashka baxaya iyo kharashka soo xiranaya iyo laba kolom aanu kala bixinay deeqdii iyo kaabidii lagu kaabayay iyo wixii baxayay kadibna waxaan xisaabsanay mid walba totalkiisaan samaynay ama isku darkiisa kadibna totalka guud ama xisaabta guud baan samaynay oo lacagta soo xirataa iyo lacagta baxda waa kala jarnay waxaan samaynay markaa graph casharka maanta intaas ugu joojinaynaa wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh